ambayaan shodadu runiya bemba isbal ordaye halyay bisiliyo bilaash xayta walla la kala barayo maanta kala bixe oo bulshadu xasan sheekh ayay u bogtay marka la baxnaansho ilaa qiyaamaha iska wado yaa kaga mudan sharafa liidi dhalinyarada quruxda badan aqoon-yahanka haweenka mar labaad waxaan si yaab leh u salaamayaa xildhibaan maxamed cajiib shacabka siiya horta dhammaantiin waa mahadsantihiin caawa farxadda igu badan kalgacalkiina igu badan hadalku hadduu foorteenba iga galo xataa waa laygu qaadaa hadda kaabirimaanka uu sii sheegay hadhow iga idhid garay baasho waas naqaan okay abaalkiina allaha gudo waa mahadsantihiin waxay ila tahay abaabulkan iyo isku imaatinkaani inuu ku yimi guul aynu wada gaadhnay weliba innaga kaligayna aan ahayno soomaali oo dhan ay gaadhay inay ku yimi aniga waxaaba igu filnayd inaan guulaysanay oo hadafkii aan lahayn iyo hiigsigii aan gaarnay goolkii aan rabnay inaan dhalinay intaasaaba farxad iigu filnayd laakiin adinkiyaa waxaad garateen inaad farxad iigu sii dartaan xildhibaanka mar kale waan uga mahad celinayaa iyo xildhibaanada kale sharaf iyo karaamaad leedihiin caawa habeen lamida weligay ma arag weligay hadalka ma geggebin anugu mikrofoonka markaan ku hadlaayo iyo markaan ku heesayo labadaba waa ku fiicana laakiin caawa inaan hadalka geggefo xataa waxba ila maaha aadaad u mahadsantihiin waxaan wada hambalyeynaynaa mudane madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaan sidoo kale aan kal iyo laba sagan u salaamayaa abwaan aakhiro oo heesta asagu qoray ood maqlayseen caawa weliba kuwii kale ee aan soo karinaynay dabka saarnayna idiin sii hormariyey ayagoo sidii tii hore u dhadhamaya oo dhegihiina si fiican u culi doona kana sii macaan ayaan idin horkeeni doonaa heesahaas abwaanku caawa uu tiriyey iyo kuwo kaleba adeer maxamedeyo hadaayo wuxuu yidhi hawshu waa bilow waa sax waa bilow kowma joogto hal hees habarta eeban haddii la iska yeelo waa wadaynaa sharafaad leedihiin anigu horta siyaasadda kuma fiicni laakiin waxaa loo baahan yahay soomaaliya waxay u baahan taha ninka ku fiican aan aqaan warkaas sooma cadda baashu siyaasaduna kuma jirto aniga waxayga qabyaaladuna kuma jirto facebookana waa ka warhaya halaygala yaallo ninka soomaali ku fiican oo wax qaba kara oo wadi karaan aqaan intii aragtidayda iyo intii soomaaliya ila qabtoon indhahayga ku arkay muhiimaddu intaasay ahayd entu waa igu badatay iga raalli ahaada waa mahadsantihiin 1,000 jeeraad mahadsantihiin xildhibaanada oo xildhibaan maxamed cajiib ugu horreeya waa mahadsantihiin hablaheena quruxda badan waa mahadsantihiin bahda saxaafadda waa mahadsantihiin halkan aynu isugu nimi akhyaartii hooy ahaanta u lahayd naftirkooda raadileed waa mahadsantihiin adinkuna adinkiiyo xeebta qabowga badane shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada $1 waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EVC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha